marka nabigeenu kaleey salaatu wasalaam suuqii Madiina nabigu soo galay wuxuu arkay nigi zaahir oo meesha fadhiyo sii jeedo wax gadanaya marka abu nabigu xagga dambu ka istaagay deedna labada indhood buu nabigu qabtay marka abu war adoonkan aniga ale ayaa iga gadan oo iga iibsanaya ilaa zamanka adooma la iibin jiray moogtahay meelaha qaar kood way jireen waxyaabaha shariicada islaamku ay horumarka ay shariicada islaamku caalamka u keentay waxa kamid ah adoomihii la iibsan jiray diinta islaamka horeysa wixii oo dhan oo baabiisay markaas uu ninkii u carooday marka ilaa nin xor oo carabiya oo la leeyahay waa adoonaya iga gadanayo iga iibsanaya u xanaaqay markaa mar alle markuu dareemay cidda gadaashiisa taagan inay tahay nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam laana gacanta nabi maxamed gacmaha way ka duwaneyd Anas bin Malik oo khaadimkii nabigeena ahaa wakiilaha ma taaban buu yiri maro xariira oo ka jilicsan kafkii nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam maan urin buu carfi ka udgoon badan carfiga jirka nabi maxamed ka soo baxaya inaka maalintii magaalada markaad u dhaadhacday suuqa aad ka soo noqonayso adigoo ma aragtaan khamkhamaya soo noqonayo oo dadna dharka markaa waad iska badilaysaa walaakiin nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam mar alle markuu dhididaba jirkiisa isaga udgoon ba ka soo baxaya jirkiisa udgoon mar alle markuu arkay gacantan inay tahay gacantii nabiga jileeca carfiga soo baxaya uu yahay carfigii udgoonkii jirkiisa ka soo baxaya markuu gartay inuu nabi maxamed uu yahay shakhsigan ayuu dhabarkii nabiga ayuu dhabarkiisii nabiga ku xamaaray laabtiisii markaa buu yaa rasuulallah oo haddii aad tiraahdo addoonkaygii weeyaan han iibiyana aniga ayaa iga ka iibsanayay buu nin faqiira oo miskiin oo reer baadiye ayaan ahay buu ka yidhi ka bixi maayo layga ka iibsan maayo buu ku yidhi markaa buu nabigu isku sii dhajiyay isaguna markaa buu yidhi lasta bikaasidin ma tihid shakhsi qiimo hooseeya bal anta cinda allaahi qaalibu nabigu ku yidhi waxaa tahay shakhsi ilaah agtiisa qiimo weyn kula tahay buu nabigu ku yidhi wararmi kuma miisaamin nabigu dharkiisa meesha uu degan yahay waxa uu nabigu ku miisaamaya qofkan iimaankiisa iyo amalkiisa wanaagsan